dunidan wax walba ayaa ka dhaca mar walbana warka ku soo gaaraya ma ahan mid farxad leh. daqiiqado yar ka hor waxaa baraha bulshada qabsaday sawirka gaari burbursan oo rogmaday, kaasi oo la tilmaamayay inay ku jiraan amaba ay saarnaayeen labada fanaan ee saamaynta leh dhanka Soomaalida marka loo eego Sharma Boy iyo Maslax Mideeye, kuwaasi oo safar shaqo iyo show u aaday ariga Puntland. muuqaal araga gaarigan iyo sida uu hadda muuqaalkiisu yahay waa wax laga warwaro cabsi leh, iyadoo la dareemayo in natiijo aan fiicnin ay ka soo bixi karto. noloshan waa mid gaaban oo qof walba ma oga wakhtiga uu dhimanayo iyo wakhtigay dhibaatadu soo gaari karto. isbuucan waxay u ahayd Sharma Boy iyo Maslax Mideeye isbuuc dhibaataysan oo ay dagaal baraha bulshada kula galeen shakhsiyaad kale oo saameyn kula baraha bulshada. kaliya fankooda ma uusan noqon mid saameyn leh, laakiin isqabqabsiga baraha bulshada ayaa ka dhigaya maalmahooda kuwa aan fiicnayn. labadan fanaan oo ka mida kuwa hadda loogu jecel yahay Soomaalida ayaa maalmahan waxay xiisad kala dhaxaysay Daahir Calasow oo ay isku hayeen dhanka baraha bulshada, balse qabarka naxdinta leh waa mid wadnaha jaraya qof walba oo Soomaali ah, isla markaana ka nixi kara waxa ka soo bixi kara. si walba oo ay marxaladdu tahay, wakhtigan sheekadu way iskala tagtay dagaalka baraha bulshada. hadda waa yaa nool yaase dhaawaca. gaarigan aad u jeedaan waa gaarigii ay saarnaayeen Sharma Boy iyo Maslax Mideeye oo warar iskhilaafsan ay sheegayaan inay dhaawac yihiin amaba ay naxdintu intaas ka sii badan tahay. sida warbixinnada soo baxaya ay tilmaamayaan, gaariga waxaa darawal ka ahaa Sharma Boy halka Maslax Mideeyena uu la saarnaa. tani waa dhacdo murugo leh oo naxdin leh oo qalbiga taabanaysa. saacadaha soo socda waxaa la filayaa in war uu ka soo bixi doono xaaladooda caafimaad iyo sida ay tahay. alla waxaan uga rajaynaynaa inay noqdaan kuwa caafimaad qaba, dhaawacoodana uu sahlan yahay. dhammaanteen aan u ducayno haddii dhaawacuu soo gaaray in allaha uu caafiyo. aad iyo aad ayaan uga naxay markaan arkay gaarigan iyo inay ku jireen wejiyada Sharma Boy iyo Maslax Mideeye oo ah laba ka mid ah fanaaniinta kuwooda ugu qalbiga wanaagsan. aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee kommentiga. muuqaalkanna gaarsiiya asxaabta kale si ay u ogaadaan dhibaatada dhacday iyo inay u soo duceeyaan fanaaniintan iyo shakhsiyaadkii kale ee gaariga la saarnaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. dunidan wax walba ayaa ka dhaca mar walbana warka ku soo gaaraya ma ahan mid farxad leh. daqiiqado yar ka hor waxaa baraha bulshada qabsaday sawirka gaari burbursan oo rogmaday, kaasi oo la tilmaamayay inay ku jiraan amaba ay saarnaayeen labada fanaan ee saamaynta leh dhanka Soomaalida marka loo eego Sharma Boy iyo Maslax Mideeye, kuwaasi oo safar shaqo iyo show u aaday ariga Puntland. muuqaal araga gaarigan iyo sida uu hadda muuqaalkiisu yahay waa wax laga warwaro cabsi leh, iyadoo la dareemayo in natiijo aan fiicnin ay ka soo bixi karto. noloshan waa mid gaaban oo qof walba ma oga wakhtiga uu dhimanayo iyo wakhtigay dhibaatadu soo gaari karto. isbuucan waxay u ahayd Sharma Boy iyo Maslax Mideeye isbuuc dhibaataysan oo ay dagaal baraha bulshada kula galeen shakhsiyaad kale oo saameyn kula baraha bulshada. kaliya fankooda ma uusan noqon mid saameyn leh, laakiin isqabqabsiga baraha bulshada ayaa ka dhigaya maalmahooda kuwa aan fiicnayn. labadan fanaan oo ka mida kuwa hadda loogu jecel yahay Soomaalida ayaa maalmahan waxay xiisad kala dhaxaysay Daahir Calasow oo ay isku hayeen dhanka baraha bulshada, balse qabarka naxdinta leh waa mid wadnaha jaraya qof walba oo Soomaali ah, isla markaana ka nixi kara waxa ka soo bixi kara. si walba oo ay marxaladdu tahay, wakhtigan sheekadu way iskala tagtay dagaalka baraha bulshada. hadda waa yaa nool yaase dhaawaca. gaarigan aad u jeedaan waa gaarigii ay saarnaayeen Sharma Boy iyo Maslax Mideeye oo warar iskhilaafsan ay sheegayaan inay dhaawac yihiin amaba ay naxdintu intaas ka sii badan tahay. sida warbixinnada soo baxaya ay tilmaamayaan, gaariga waxaa darawal ka ahaa Sharma Boy halka Maslax Mideeyena uu la saarnaa. tani waa dhacdo murugo leh oo naxdin leh oo qalbiga taabanaysa. saacadaha soo socda waxaa la filayaa in war uu ka soo bixi doono xaaladooda caafimaad iyo sida ay tahay. alla waxaan uga rajaynaynaa inay noqdaan kuwa caafimaad qaba, dhaawacoodana uu sahlan yahay. dhammaanteen aan u ducayno haddii dhaawacuu soo gaaray in allaha uu caafiyo. aad iyo aad ayaan uga naxay markaan arkay gaarigan iyo inay ku jireen wejiyada Sharma Boy iyo Maslax Mideeye oo ah laba ka mid ah fanaaniinta kuwooda ugu qalbiga wanaagsan. aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee kommentiga. muuqaalkanna gaarsiiya asxaabta kale si ay u ogaadaan dhibaatada dhacday iyo inay u soo duceeyaan fanaaniintan iyo shakhsiyaadkii kale ee gaariga la saarnaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.